Asalaamu calaykum, soo dhawaada macaamiisheeda sharafta leh ee halkan nagaga xidhan. Maanta waxaan joogaa mid ka mid ah guryaha quruxda badan ee ay shirkadda Hodman Construction ay dhistay. Shirkadda Hodman Construction inta badan waxay uga barateen inay idin dhisto guryo kala duwan oo nashqadahoodu iyo muuqaalkooda uu mid ka qurux badan yahay. Gurigani waa mid kale oo qurux badan oo ay shirkaddu idin dhistay. Gurigani waxa uu ka kooban yahay 5 qol, 4 qol oo hurda iyo qolkii fadhiga iyo cuntada. Runtii shirkaddu si fiican ayay dadka ugu nashqadaysaa. Guriga jeceshahay iyo dooqaagana way kugu dhisaysaa. Sidoo kale shirkaddu waxay gebi ahaanba ay ku dhisaysaa dhismayaal kala duwan, hadday noqoto guryaha waaweyn ee filooyinka iyo dhismayaasha dabaqyada ah, istoorada iyo gebi ahaanba dhismayaasha kala duwan ee aad jeceshahay in lagu dhiso. Nashqadda iyo dhisaynku waa mid aad adigu dooranayso oo aad adigu ku qancayso. Qolkani waa qolka fadhiga, waa qol aad loo nashqadeeyay oo qofka iyo choice-kiisa loogu dhisayo iyo marba siduu jecel yahay in gurigiisa loogu nashqadeeyo. Qolkan kalena waa qolka hurdada. Adigu sidii aad jeceshahay ayaa lagu dhisayaa. Runtii qolka hurdada si fiican ayaa loo nashqadeeyay. Lighting-kiisa aad baa loo qurxiyay. Hodman Construction Company waa mid ka mid ah shirkadaha aadka loogu bogay ee waxweeye qiimaha macquulka wax kugu dhisaya guriga jeceshahay iyo nashqadda aad doorato kugu dhisaya. Sidoo kale waxaa isla qolka gudihiisa kugu dhisan musqushi oo laakiin qayb gaara loo jaray oo halkan hortiina ka muuqata. Qolkana waa mid ka mid ah qolalka hurdada ee uu gurigani leeyahay. Aad iyo aad buu qurux badan yahay, maasha Allah. qaybtana waa musqushi public ahayd ee loogu talagalay in dadku wada isticmaalaan ama waxweeye guriga ka dhaxaysay. daawada qaybtana waa kitchadii weeyaan. waxa laga soo geliyaa albaabkan dibadda. Sidoo kale dhanka gudahana albaab ayay ku leedahay, dhanka dambena albaab ayay ku leedahay oo marba dhinacii aad jeceshahay ayaad ka isticmaalaysaa. aad iyo aad buu qurux badan yahay gurigani oo uu nashqadiisa iyo nidaamkiisa uu salaxan yahay. sidoo kale marfashkii weli laguma xidhin, laakiin aad iyo aad buu runtii gurigani nidaamkiisa uu saxan yahay. daawada haddii aad jeceshahay shirkaddu inay guriga ku dhisto, nambarada shaashadda kaaga muuqda ayaad kala xidhiidhaysaa.